tallaalada iyo xoojiyeyaasha sida loo yaqaano boosterka waxa ay door badan ka qaataan daryeelka bulshada. Gobolka Minnesota ku dhowaad 4 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalkan COVID-19. Degmadan Decorah County, qiyaastii 9 ka mid ah 10kii carruuraba ee da'doodu ka weyn tahay 12 sano way qaateen tallaalka COVID-19. Laakiin maalin kasta waxaa weli la arkaa dad badan oo aad u xanuunsaday oo ah khaasatan dadka aan tallaalka qaadanin. Taasna waa nasiib darro. COVID-19 weli waxa uu sabab u yahay in ay dad badan u dhintaan, waana xanuunka saddexaad ee ugu badan ay u dhintaan dadka Mareykanka. Sharci ma aha in aad xidhatid maaska marka aad joogto meelaha indoor-ka ah. Qof kastaba isagay jirtaa inuu ogaado wixii caafimaadkiisa saameynaya. Dad baa jira xanuuno kala qaba oo uu COVID-ku aad u saameynayo. Marka dadka waxa fiican inay xidhaan mask marka ay joogaan meelaha dadku ku badan yihiin, sida suuqyada, dhakhtarrada, marka ay adeeganayaan. Xanuunadaasi waxaa ka mid ah qof ka soo qaad qaba macaan, qof qaba wadne xanuun, qof maxay ahaydee xanuuno kale ay oo dheeraada oo haddii ku dhaco COVID-ka aad uga sii xanuunsanaya. Waxaa kaloo jirta dad da'doodu waaweyn tahay oo iyaguna aan adkaysan karin hadduu COVID-ku ku dhaco. Marka waxaa fiican haddii aad ka baqayso inuu xanuunkaaga halis u keenayo caafimaadkaaga, inuu COVID kugu dhaco, marka aad dabadda maraysid, meelaha buuqa aad joogto, inaad xidhatid mask. Laakiin sharci dowladeed ma aha, adiga baa ah inaad ogaato wixii khuseynaya caafimaadkaaga iyo wixii daryeelaya caafimaadkaaga, maskana aad u xidhatid sidii aad u badbaadin lahayd caafimaadkaaga. Wixii xaaladaha iminka xilliga la joogo. Laakiinse sidii aan su'aashii hore uga jawaabnay oo kale, waxa fiican ilmaha xanuunada dheeraadka ah leh sida neefta asmada loo yaqaano ama kansarka loo yaqaano ama wadne xanuunka loo yaqaano, inay taxadir dheeraada daraaddeed ay u xidhaan maaska si ay naftooda u badbaadiyaan oo ay u daryeelaan dhibaatooyinka uga imaan kara hadduu COVID ku dhaco. Haddii aad shaki ka qabtid inaad tahay qof high risk u ah in uu xidho mask marka uu iskuulka joogo, la tasho dhakhtarkaaga ama farmasigaaga. Waxaan ognahay maasaska isbitaalada lagu isticmaalo ama kuwa surgery-ga marka la sameynayo qalliinka, kuwaas ayaa ugu sarreeya kuwa maaragtay 95 ama qalliinka soo sheegay. Mask laga sameeyey marada waa laga fiican yahay, si fiican uma aha sida maasaska kale. Stoorada badan, dukaanada badankooda haddaad soo adeeganaysid ama aad wax soo iibsanaysid ama aad dhakhtarka tagtid, badanaa mask bilaash bay ku siinayaan. Marka haddii aad khatar u tahay ama halis u tahay jirooyinka, haddii aanad mask xidhnayn, waxa fiican inaad iska xidhatid si aad uga badbaado dhibaatooyinka. Qof kasta oo tallaalka qaatay wuxuu heli karaa xoojiye booster. Carruurta 5 sano ka weyn waxay heli karaan tallaalka xoojiye kadib 2 bilood markii ay qaateen tallaalka COVID-19. Haddii aad ka qabto su'aalo COVID-19, waxaad weydiin kartaa farmasiga xaafadaada ama xafiiska dhakhtarka. Waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada Decorah Public Health waxay sidoo kale kaaga jawaabi karaan wixii su'aalo ah eed qabto, hadday noqoto COVID-ka, hadday noqoto maaska, ama haddii ay noqoto tallaalkaba. Nambarkoodu waa 651 554
lix hal eber eber.